shirkadda Asli Maydi ayaa habeennimadii xalay magaalada Ceergaabo kulan casho sharaf ugu sameysay dhalinyarada xulka kubadda cagta ee gobolka Sanaaga. Munaasabadda casho sharafta oo ka qabsoontay Hotel Ritzy ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo iyo mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha gobolka Sanaaga. Ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay afhayeenka shirkadda Asli Maydi Cabdicasiis Aadan Jalawo iyo madaxa mashaariicda shirkadda Asli Maydi Cabdiraxmaan Xuseen Digaale oo ballan qaaday inay shirkadu bixinayso $10,000 haddii xulku ku guuleysto koobka. Munaasabadan aynu isugu nimi waxa weeye sagootin dhiirigelin iyo waxaan u qabanay ciyaartooyda gobolka ee u metelaysa ciyaaraha gobolada Soomaaliland xulka gobolka u metelaya sidii aanu si sagootin lahayn. Shirkadu maaha markii uu horeysay marar hore badan koobab aanu qabanay agab sports waanu gusdoonsinay baa jirtay waanu barbar taaganay shirkadda Asli Maydi iyadoo dhiirigelinaysa sportska gobolka iyo xulka gobolka insha Allah taala haddii aad koobka qaadaan waxay idin ballan qaadaysaa lacag $10,000 haddii aad kaalinta labaad gashaan waa $5,000. xafladani waa casho sharaf aan ku sagooteyno dhiirigelin aan ugu sameynayno dhalinyarada ciyaartooyga ah ee gobolka metelaya ballanqaadka afhayeenku sheegay ka maamul ahaan waxaan isku daynaa insha Allah inuu fulo uu noqdo ballanqaadkii sida rasmiga ah u fula ka maamul ahaan mashaariicda aanu ka wadno gobolka waxaan ku dadaalayaa 100% inay dhalinyaradu hesho shaqo abuurka noqdaan dhalinyarada reer Sanaagna kuwa ka shaqeynaya aan gobolka inagoo ka heli karna shaqaale aynaan door bidin gobolada kale dhigeen reer Sanaag sanadka waxaan idin rajeynayaa inaad idinku metelaya gobolka Sanaag ha noqoto basketball-sha iyo football-shaba iyo orodkaba inaad gobolada kale dhigeena aad inooga soo badisaan shirkadda Asli Maydi mar walba waxay taagan tahay dhiirigelinta dhalinyarada iyo sidii dhalinyarada loo dhiirigelin lahaa sanadkan waxaan rajeynaynaa inaad koobka soo qaadi doontaan Asli Maydi maaha markii koobaad ee dhalinyarada gobolka Sanaaga sportska wax u qabato koobkii ugu dambeeyay dhalinyarada gobolka annaga martigelinay markasta diyaar waxaan u nahay inaan dhalinyarada shaqo abuur u sameeyno dhiirigelin u sameeyno waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay suduwa wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha gobolka Sanaaga iyo kabtanka kooxda xulka gobolka Sanaaga iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin kale oo tiro badan kuwaasi oo u mahad celiyay shirkadda Asli Maydi. shirkadda Asli Maydi oo caawin oo sameysay kulankan iyo casho sharaftan iyadana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waxaan aaminsanahay waxa la inagu ballan qaaday inaynu helayno ma anigu ogahay ilaahayna waxaan ka baryaa inaynu helayno idinka soo idinka waqooyi inay helaysaan caawa halkan joogno shirkadda aadka u qaali garan ilaaway afwan Asli Maydi soo wada soo ilaa 2015 hadda joogno waqtiga inta la eeg dhalinyarada iyo qudheeda way garab taagneed doorka ugu muhiimsanna way ka qayb qaadataa gobolka salaamaya garwadeedada hogaaminaya Asli Maydi waxaan leeyahay iyo gudoomiyahooda barqad aad iyo aad ayaad u mahadsantiin dhalinyaradu inay ilaawayso gobolka Sanaag ciyaartooyga ka yimid ayaa ugeeda fiicnaha la soo yiraahdo inta dabadeed waxaan u mahadnaqayaa oo xafladan caawa ah sameysay shirkadda Asli Maydi aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa horumarka ay gobolka ka wado iyo dhiirigelinta waxaan jecelahaynaa in halka ka sii wado idinka sharaf iyo karaama la idinka rabaa wixii la idinku maamuusayo wanaageeda soo idinku imanaysa inaan idin u dhigtaagin laakiin sharaf iyo karaama ugu haynaysa waxaan u mahad celinayaa shirkadda Asli Maydi oo inama caawin iyada marti u nahay runtii wax wanaagsan bay qabatay waxaan leenahay Allah idin barakeeyo maalkiina dhalinyarada halka joogta ee sportskeena haday tahay ordiyahano iyo hadii ay tahay qolada football-sha iyo hadii ay tahay orodadaba guul baynu insha Allah bidnillaahi u rajaynaynaa halkan waxaan horta marka koowaad ugu mahadnaqayaa shirkadda Asli Maydi oo runtii sida laga soo sheekeeyay dhalinyarada dhiirigelisa waxaan leenahay waa mahadsan yihiin Asli Maydi
oo samaysay ayaan boqolkiiba boqol u mahad celinayaa dhiiranaanta iyo shaqo abuurka iyo sharafta iyo hantida ay gelisay gobolka aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan ka rajaynayaa inay halka ay ka sii wado shirkadda Asli Maydi waxaan u hambalyaynayaa dadaalka ay muujisay iyo waxa weeyaan horena ay u muujin jirtay waxaan leeyahay hambalyo aad baad u mahadsantihiin in la iskarab taago dhalinyarada ama ciyaartooyda gobolka ka qayb galaysa waa waxyaabaha guulaha ay ka mid tahay socotaan ay u tageysaan caasimadda Hargeysa kuwii ku soo guuleystay ilaahay fududeeyo Allah idinka dhigo waxaan idinka rajaynayaa kuwii magaca gobolka Sanaag sare u soo qaaday ilaahay idinka dhigo waxaan rajaynayaa xulka gobolka Sanaag inay ku soo guuleysan doonaan sanadka koobka gobolada Soomaaliland iyadoo gobolka Sanaag dhowr jeer hore uu koobka soo qaaday marar kale uu kaalmo wanaagsan ka galay xagga kubadda cagta maanta waxaan u rajaynayaa inay xulka gobolka Sanaag ay soo qaadi doonaan koobka gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo shirkadda Asli Maydi ku amaanay hawlaha horumarineed ee ay gobolka ka samaysay qodobka koowaad horta weydiintu waxaynaynaa inaad guulaysataan insha allahu tacaala ninkii kala hadha ubadkeenna wax isagaa khasaaray aniga waxaa ii dana oo degmada u dana oo gobolka u dana idinkoo qurux badan oo guulaystay oo aan dayacmin guushiina qaaday dad badan baa idinla hadlay waxeeraan bixinayaa anna waxeeraan bixinayaa meesha hadal looma baahanaa run baa loo baahanyay wax laga yaabaa qaar aan waxba bixinayni inay yidhahdaan waxbaanu bixinaynaa waa laga yaabaa laakiin Asli Maydi waa ka duwan tahay Asli Maydi horena way idin caawin jirtay way idin dhinac taagnayd caawin way dhinac taagantay waana u mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya magacii degmada Asli Maydi horena dhaqankaas u lahaydeen caawana kiinu waa run aad baan idinku mahadnaqaya waana hadhow way iska warhaynaynaa anigu figar sheegi maayo laakiin wax runaan sheegaya برينا وإنسان ببحنا يا برينا وأوغانتون تام واحد وكاب بحيو هادونا دقال وقالين ذنبه هرجيس مركز شوكتان أيانو مالين أنا أقول باي بدنتين ثاني وكقيب قليا مدنا نقول ذنوان مايو قال هران مغري وعير هذا هدي أقول ليس ويدانا وحبا مالي بقول باليدي هدي أقول ليس الثاني هدي نقول ليس بقى lacag baan ugu leeyahay anaga kharash baan ugu leeyahay marka xiga waxaan hambalyeynaa shirkadda Asli Maydi waa uga mahad celinaynaa waxyaabaha ay ballan qaadeen iyo casho sharafta ay ku maamuseen xulka gobolka oo ay ku muujinayaan inay ku garab taagan yihiin mar walba Asli Maydi aad baad ugu mahadsantihiin hantiilahana waxaan leeyahay ilaahay ka abaalmariyo waxaad gobolkaaga siinayso waxaan kaloo intaan Asli Maydi ka bixin aan leeyahay ciyaartooguna waa ii sheegay bulshaduna waa ii sheegtay inaad garab joogtaan mar walba horumarka gobolka aad ka qayb qaadataan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Saab TV Ceerigaabo